Hello? Hello. I would like to confess to a murder. My name is Cameron. Cameron? Rogers. Who did you kill? My mom and dad. 19 Diseembar 2019 Cameron Rogers oo ah 24 jir Kanadian ayaa qirtay dambigiisa isagoo argagax badan ku riday bulshada degan magaalada Ottawa laakiin sidee buu u go'aansaday in hooyadiis iyo aabiis uu gacantiisa ku dilo waliba maalin dhan sariirta inaad jiifto calaalka hooyada ma dhageysan lahayd iyadoo nafbaxaysa laakiin daawada baaritaanka kiiskan ayaan ku ogaan doonaa balse marka hore haddii aadan ku soo biirin channelka fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uusan ku dhaafin mahadsanid Cameron Rogers wuxuu dhashay sanadii 1994 waxaana korsaday David Rogers iyo Mariel Glady. David iyo Mariel ayaa ahaa lamaane aad isku jecel kuwaas oo isguursaday sanadii 1982. Lamaanahan ayaa aad u jeclaa inay ilmo dhalaan aad ayayna ugu farxeen inay gurigooda ku soo dhaweeyaan Cameron oo ay ka soo wateen xarunta agoonta. David Rogers ayaa ahaa wariye sare oo ka tirsan TV-ga Citizen Ottawa ee Canada kaas oo warbaahinta ka shaqeynayay muddo 37 sano ah. Mariel ayaa ka soo jeeday qoys military kadib markii ay ka qalin jabisay jaamacadda Ottawa oo ay ka baranaysay cilmiga luqadaha. Mariel waxay ku tababaratay buuraha Ottawa iyadoo noqotay mid ka mid ah dumarkii qaatay tababar dagaal oo buuxa. Mariel ayaa noqotay la taliye sare oo ka tirsan waaxda difaaca qaranka ee Canada 35 sano kadibna way ka fariisteen shaqada. David waqtigaas wuxuu ahaa 47 jir halka Marielna ay ahayd 41 jir. inkastoo ay aad u daaweynayeen haddana Cameron ayay waqtigooda oo dhan kula qaateen Yurub iyagoo u koriyay sida ugu fiican ay awoodeen. Lamaanahan ayaa la sheegay in noloshooda ay wax walba ka hormarin jireen wiilkooda Cameron inkastoo ay jacayl badan u qabeen haddana dhibaatada ayaa bilaabatay markii uu weynaaday. David ayaa saaxiibadiis u sheegay inuu aad uga walaacsan yahay wiilkiisa Cameron sidoo kale wuxuu ka hadlay dhibaatooyinkiisa dugsiga iyo habdhaqankiisa oo aad u liita sheegayna inuu dhibaatooyin kala kulmaayo. Cameron ayaa awoodi waayay inuu sii wado iskuulkiisa isagoo isku tilmaamay inuu qabo cudurka autism-ka waa cudur maskaxda ku dhaco kaas oo qofka ka qaadaya hanaankii deganaanta rabshadna mar walba ku dhex jira waxaana loo diiwaangeliyay inuu yahay naafo. I didn't like it, so I went to the normal kadib qalin jabintiisa Cameron waalidiintiisa ayaa ka soo diiwaangeliyay Algonquin College si uu u noqdo injineer farsamada gacanta waqtigaas ayuu sii xumaaday khilaafka isaga iyo waalidiintiisa kadib caradiisa ayaa aad u sii badatay taasoo sababtay rabshado waali ah inuu sameeyo. Hooyadiis Mariel ayuu midi kaga dhuftay dhabarka iyo qoorta isagoo ka bixiyay isha midig. David Rogers ayaa maqlay dhawaqa qaylida iyo proorta xaaskiisa oo la dilayo jikada ayuuna soo galay. intuu xaaskiisa u cararayay David Cameron ayaa midida ka galiyay dhabarka iyo wadnaha. David si dhaqsi leh ayuu u dhintay dhibax degdeg ah awgiis laakiin Mariel ay nafta ku sii jirtay maalinkii ilaa habeenkii. He gouged out her right eye. She had multiple stab wounds and she was in great pain moaning on the ground. Cameron wuxuu ogaa in hooyadiis ay weli nooshahay. Jikada ayuuna kaga tagay isagoo aaday qolka jiifka si uu u sugo inta ay ka nafbaxayso. maalinkii xigay Cameron aabihiis iyo hooyadiis wuxuu ku riday shandad ka hor inta uunan meydkooda ku tuurin daarad dambe meel guriga gadaashiisa ah oo geeda badan una dhaxayso daashka iyo deyrka. Cameron wuxuu nadiifay dhammaan dhiigii iyo waxyaabihii kale ee caddeyn u noqon karay dilkii uu geystay waalidiintiisa. Markii dambena madaxii iskoobaha uu ku nadiifinayay dhiigga ayay heleen saraakiisha dambi baarista iyo mididii uu dilka ku geystay taasoo uu ku qariyay qashinka garaashka dhexdiisa. maalmo kadib cunto u baahday taasoo guriga ka dhamaatay wuxuuna ku qasbanaaday inuu dabaqa ka soo dego. muddadaas guriga waxaa soo booqanayay qaraabada waalidiinta iyo asxaabta balse wuxuu sheegay inay hargab qabaan loona geli karin oo dhaqaatiirta ay diideen midaas. toddobaad kadib Cameron ayaa soo baxay kaasoo goostay tikidka diyaaradaha qorshihiisana uu yahay inuu u socdaalo Mareykanka si uu uga fogaado Ottawa halkaasna uu ku noolaado. inkastoo uu haystay dhalashada waddanka Canada haddana uu xaq u leeyahay inuu ka dego Mareykanka wuxuu shaki badan geliyay immigration-ka taasoo sababtay in la soo celiyo. nasiib darro meel uu aado ayuu waayay booliiska ayuuna wacay isagoo sidan leh. Hello? Hello. I would like to confess to a murder. My name is Cameron. Cameron? Rogers. Who did you kill? My mom and dad.
intii lagu guda jiray wareysigiisii ugu horreeyay ee uu la yeeshay booliiska, Cameron ayaa qirtay dilkii uu u geystay waalidiintiisa, balse waxaa cajiib ah wax murug ah ama cabsi ah kama muuqato wejigiisa oo waxaad u malaysaa inuu ka sheekaynayo arrimaha cimilada. booliiska ayaana weydiiyey su'aalahan, balse waxaa ku filaatay qirashadiisa aanan ka muuqan wax jixinjixa ama dareen sida qof waalidiintiisa oo calool xumaanaya. Cameron ayaa sheegay in sababta uu dilay waalidiintiisa ay tahay inay ku qasbeen kuliyadda uu baranayay isagana uusan rabin midaas. Cameron waxaa lagu soo oogay dacwad dil darajada koowaad ah sida uu qabo sharciga Canada, balse xeeraalinta ayaa ku qasbanaatay inay soo caddeeyaan in maskaxdiisa ay normal tahay. booliiska ayaa ogaaday ficilada Cameron inay u muuqdaan kuwo hore loo sii qorsheeyay, aanan ahayn xanuun isaga hayo. sidoo kale booliiska waxay ogaadeen in midida xitaa la sii afeeyay inta uusan ku dilin waalidiintiisa. su'aasha iska cadna ay tahay muxuu jikada u soo galay. Cameron ayaa hooyadiis ugu tagay jikada iyadoo dhiigbaxaysa, weliba ku calaacalaysa i badbaadi, taasoo caddaynaysa in si kas ah uu ugu tagay rabayna inay dhimato. markii la weydiiyey haddii aadan ku qanacsanayn dhimashadooda maxaa booliiska u soo wici weysay isla markii si loo badbaadiyo, wuxuu ku jawaabay, aabbahay dhaqsi ayuu dhintay, hooyadayna waan ka tegi kari waayey. runtii waxay rabtay inay istaagto, balse dhaawacida halista ah ee aan u geystay ayay la istaagi weysay. laakiin waan jooji kari waayey. waxay dhex socotay jikada ilaa guriga oo dhan iyadoo xabadka ku socoto weliba dhiig baxayso. waqti badan ayay ku qaadatay inay dhimato. habeenkii oo dhan qayladeeda ayaan maqlayay, subaxii ayay joojisay. I couldn't make it stop. And I was mad because she was in pain. And I wanted her not to be in pain. But I couldn't stop it. And it went for the whole night. She took no. markana qareennada difaacayay kiiska Cameron ayaa sheegay inuu qabo xanuunka maskaxda, gaar ahaan xanuunka loo yaqaano autism-ka, kaasoo micnaheedu uu yahay inaanan dembi lagu qaadi karin qof xanuunkaas qabo. balse waxaa jira kiis kale oo uu geystay nin lagu magacaabo Alexis Minassian, kaasoo mas'uul ka ahaa weerarkii Insalvan ee ka dhacay magaalada Toronto, kaasoo lagu dilay 10 xubnood oo ka tirsan bulshada degta Toronto. hase ahaatee waxay sheegeen kooxihii difaacay ayna ku andacoodeen inuu qabay cudurka autism-ka, taasoo ay sabab u ahayd hab fikirkiisa oo aan xakamaysnayn. isku midna ay yihiin kiiskaas iyo kan ayuu ku andacooday qareenkii difaacayay Cameron. mar kale qareenka Cameron ayaa David oo dhintay ku eedeeyay xadgudub ku saabsan galmo uu sameeyay, balse wuxuu codsaday inuu u baahan yahay waqti dheeri si uu u keeno cadeymo oo dhammaystiran. balse 3 maalin kadib xeer beegtada ayaa sheegtay inaysan sugi karin. ugu dambeyn maxkamadda ayaa ku dhawaaqday xukunka. Cameron wuxuu si bareera u dilay hooyadiis iyo aabihiis, sidoo kale iyadoo caawinaad u baahan ayuu kaga tagay jikada, qolkiisana uu iska seexday si uu u sugo intay ka dhimanayso. sidoo kale wuxuu isku dayay inuu qariyo dembigiisa si uu uga baxsado cadaaladda. sidoo kale wuxuu isku dayay inuu baabi'iyo sumcadda ninkii soo koriyey uu ku sheegay inuu sameeyay xadgudub galmo. 19 Diseembar 2018 Cameron ayaa lagu xukumay xabsi daa'im, balse markii dambe looga dhigay 20 sano iyagoo u sababeynaya xanuunka uu qabo ee autism-ka. ugu dambeyn David iyo Mary ayaa ka dhintay lacag ka badan $2 milyan, waxaana lagu wareejiyey xarunta Autism Canadian Foundation iyo urur daweeye caafimaadka dhimirka iyo balwadda. maxay kula tahay daawada adigana? Cameron ma sii qorshaystay inuu dilo waalidiintiisa mise waxaa sababay xaalad caafimaad dhacdada naxdinta leh? sidoo kale maxkamadda ma ku saxan tahay 20 sano ee ay ku xukuntay? fadlan nala wadaag fikirkaaga.